بسم الله الرحمن الرحيم waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintaba dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada cusub ee hadda maanta la dhaariyay dhamaantiin waa salaamadii waxaa idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka ugu horeysa sida hadda uu idin sheegay gudoomiyaha maxkamadda sare ballanta in la ilaaliyo waayo waxaad qaadeen xil waayo xilka aad qaadeen ballantiisu muhiimaddu ballan waayo waqtiga lagu qabtay inaad ku imaatid waayo marka xil weyn aad qaadeen marka xilkaana ilaahay idin la garab galo waxaan filayaa inaad tihiin badi xildhibaanada koonfur galbeed aad ka mid tihiin xilkaas la idin dhiibay ammaanay idinku tahay inaad ugu shaqaysiin wadankii aa laydinka rabaa ballanta la oofiyo sida aad u dhaarateen inaad ballanta oofisin aa la rabaa marka waxaa la idin soo doortay wadankan dhib badanaa ka jira abaaro dhibaato wax walba inaad ka samayta bixisiin la rabaa nin walba mas-uul ka yahay mas-uul haddana mas-uul kala idin saaran marka waxaan idin leeyahay ilaahay idinla garab galo mas-uuliyaddiin oo culus oo la idin saaray ilaahay idin garab galo marka waqti badanaan sugayna dad badanaan sugay marka waxaan idin leeyahay oo kul dardaarmaa nin walba xilkiisa meerto waay maalin nin meel uu ka qabtaa hadda tookadii idin soo gaartay waay meeshiini ka qabta wasaaradaha nin walba meel uu soo gaarsiiyey dadaa hortiin u joogay meeshay joogeen inaad ka qabtiin la rabaa inaad dib uga dhacdiin looma baahno marka waxaa idin farayaa ama idin sheegayaa sida dhaqsaha ugu badan wasiir dowlaha inaad u kala wareejisid nin walba xilka uu yahay wasaaradda uu joogo inaad u wareejisaan rabaa marka wabilaahi towfiiq marka eed iyada mahadsantiin hambalyo